soo dhawaada saaxiibayaal. Soo dhawaada, soo dhawaada. Caawa barnaamij ayaynu ka faalloonaynaa Somali State ku saabsan. Maadaama had walba aan ka hadlo, fadlan soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Siina sheer gareeya, siina sheer gareeya, siina sheer gareeya. Wax yar ka bacdi waynu bilaabaynaa. Sii sheer gareeya, sii sheer gareeya saaxiibayaal. Sii sheer gareeya. Kusoo dhawaada, kusoo dhawaada. Siina sheer gareeya barnaamijka. sii sheer gareeya. Waan idin salaamaya saaxiibayaal. Waan idin arkayaa dhammaantiin, waan idin arkayaa. Waan idin salaamaya saaxiibayaal. Soo dhawaada, waan idin salaamaya dhammaantiin. waan ku salaamaya walaashay adigana. saaxiibkay maasha allah. kusoo dhowo. waayahay waynu bilaabanaa barnaamijkeena insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal dunida daafeheeda meel kastoo aad ka joogtiin. habeen wanaagsan yaan idin leeyahay. haddii dharaar idin tahayna maalin wanaagsan. waxaan doonaya inaan ka faalloodo Somali State waxyaabihii ugu la yaabka badnaa isbeddelku tan iyo intii uu isbeddelku ka dhashay guud ahaan Ethiopia, gaar ahaana Somali State. inta aanan dhacdooyinka ugu la yaabka badan aanan gelin ka hor, bal aan dib ugu yar noqdo xaaladii lasoo maray ee laga soo gudbay. xaaladda lasoo maray ee laga soo gudbay waxay ahayd xaalad aan laga sheekeyn karin. qof kasta oo damiir lana uu garan karo. waxaan wada ognahay niman la wada yaqaanay oo aynu wada garanayno inay ku shaqaysan jireen nin Soomaaliya, ninkaasoo cabdi maxamed cumar la odhan jiray, kaas oo dadkiisa gaagaabiyey xukun dictatoriyad oo keligii talisnimo ah waddanka ku xukumi jiray. isaga mooyaane nin kale oo ragi ma uusan jirin waqtigiisii. waan wada ognahay. dadkana wuu gaagaabiyey, hantida dadkana wuu dhacay. waa laga soo gudbay wixii. kuwii isaga ku shaqaysanayay iyo isagiiba way israaceen, meel bay wada mareen, hawadana way ka baxeen. siday dooniba ha ahaato, waxaa yimiday isbeddel. isbeddelka yimiday waa mid loo oomanaa buu ahaa, mid aad iyo aad loogu oomanaa buu ahaa. isbeddelkii yimiday muxuu la yimiday? waan wada ognahay. isbeddelkii dhibaatooyin baa ka yimiday. waxaa ka yimiday qoomiyado, dagaal qowmiyadeed, inay isku dhacaan qoomiyado badana aan aalaaba isku dhici jirin. hadday isku dhacaanna isku dhacoodu aad u yaraa. waxaa isku dhacay qoomiyadda Soomaalida iyo Oromada, qoomiyadda Soomaalida iyo Canfarta, qoomiyado kale oo aanan garanayno Benishanguul iyo waxaa la dhahana way isku dhaceen. runtii waxaa loo aanayaa inay iyagu ka dambeeyeen, wayna tahayba sida aniga aan aaminsanahay. si kastaba ha ahaato, isku dhacyadaa waxaa ka dhashay dhimasho badan, khasaare badan, barakac badan oo aan la qiyaasi karayn. dabcan Oromo way barakacday, Soomaali way barakacday, Canfar way barakacday. waan wada ognahay. Oromo markay barakacday waxay heshay kaalmo bini'aadantinimo iyo heshay dib u dejin bay heshay. waa la soo dhaweeyey, dowladdoodii baa soo dhaweysay. kuwii Soomaalida Somali State ka soo jeeday, nasiib darrada ku dhacday, waan dareemi karaa. madaxweynaha xukuumadda Somali State uu Mustafa Cabdi hogaaminayo, caawo ahaan anigu cudurdaar uma samaynayo dhaliilaheeda. waan wada ognahay dhaliilahaas oo Soomaalinimada ka baxsan ficilada uu sameeyey. waxaynu wada ognahay barakacyaashii ugu ballaarnaa bariga Ethiopia inay ka barakaceen magaalada Baabil la yidhaha eed wada taqaaniin, magaalada aniga ay u taqaaniin. waxaa ka barakacay dad aan qiyaas lahayn. dadkii ka barakacay ee hantidoodii waayey haba yaraatee ma ayna helin wax dib u dejin ah, ma ayna helin yani gargaar bini aadantinimo ama hay-ado ama dowlad ama Somali State ama federal. federal warkiisii halkaa ii dhig, hay-adahana bartaa ii dhig. xukuumaddii mas-uulka ka ahayd ama kula dhalatay eed ka dhalatay, haba yaraatee ee wax tixgelin ah ummaddaas barakacday uma ayna samaynin.
wax eeda ama dembi oo ka sheegayaa ma jirto ilaahayna wuu og yahay ummaddiisa markhaati bay ka tahay inteenna u badan waa wada ognahay madaxweynaha Somali State hal maalin ma uusan tegin barakacyaasha baabili xerooyinka waaweyn ee macaalusha loogu dhammaaday sida barakaca biiqa koora dhandhama iyo kuwo kale oo badan hal maalin ah wuxuu u taray iska daayey hal maalin ah inta uu tegey damqasho soomaalinimo ma uusan muujinin dadkaas oo macaaluul u dhimanaya iyo gaajo iyo haraad iyo hoy la'aan yaa waxa uu sameeyey madaxweyne mustafa cagjar aniga oon been ka sheegay dadka inta u badanna ay wada og yihiin baawura inta uu raashin gargaara ka buuxiyey inuu laasacaanood colaadda ka dhacday u geeyey inuu dadku mas-uulka ka ahaa indhihiisu ay qaban waayeen ama damiirkiisu uu arki waayo laasacaanood dhibaatadii ka dhacday dabcan laasacaanood waa dad walaalaheena ee puntland kama xumi anigu laakiin sadaqadu waxay ka bilaabantaa gurigaaga okay waxaa taas dheer dadka barakacayaasha baabili ee xaaladda noocaas ku daawaday inkasta oon dadaalnay oo aan qaylinay oo aan beesha caalamka gaarsiinay weliba aniga shakhsiyan personally aan dadaal badan aan sameeyey intaan anigu ogahay iyo niman kale oo saaxiibaday ah way jiraan qayladu ma yarayn balse waxaa isweydiin mudan dadkii uu madaxweynaha u ahaa gurigiisii gurigaaga adiga oon ka soo bixin xaafadda dariska ah wax uma qaban kartid laakiin waxaa isweydiin mudan mar walba madaxweyne mustafa cagjar waxa uu ku khudbadeeyaa shacabka soomaaliyeed cadaaladooda iyo sinaantooda okay dadka uu u quuri waayey ee inay dhintaan uu raalli ka noqday inay baaba'aan gaajo iyo silac ay u dhammaadaan dadka uu raalli ka noqday bal ka waran awood qaybsina hadday ugu tagaan aragtidoodaaba dhibaysa war mas-uulka noocaas oo kale anu waxaan u aqaanaa dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u macnaystaan qabyaalad iyo reerkan uusaa u samaynaya warka magaciisa sheeganaya ama cidda uu yahay haybta la wadaaga sidaas si la-eg buu ku samaynayaa damiirka qofka bini aadanka ilaahay wuxuu ugu sameeyey inuu qalad iyo sax ku kala saaro waxaan ognahay mustafa inuu haba yaraate ee damiirka bini aadanka wax ka baxsan wax laga xishoodo inuu ku dhaqmay war dadkani maxay galabsadeen colaadda ku dhacday ee cabdi ilay sababteeda lahaa waxa uu ku mashquulay ururo iyo siyaasad iyo qabaa'il shiray iyo maxay saas la yidhi ilma adeerayaal anigu ma anigaa waalan mise sacadan baa laga heesayaa war maxay tahay siyaasadda dadkaagii aad ku dayacday maxay tahay waxaa loo kala badiyaa siyaasad marka laleeyahay marka siyaasad laga hadlayo siyaasadda ugu wanaagsan waa waxqabadka waxaa loogu kala badiya dadka ama dadka waa la kasbadaa waxaan ognahay hadda ka hor odayaal deegaanka ka soo jeeda inay u tageen inay albaabka u garaaceen albaabkana uu ka furi waayo hadal lagu qanco ama tixgelina uusan u samaynin xaqaaga inaad raadsatid qabyaalad ma aha niman baa qabyaalad u arka Somali State waxaa degan ummad Soomaaliyeed baa degan yaan been loo sheegin ama yaanu been u sheegin haybta uu ka soo jeedo kuwa dulman baa jira dowladda waxaa lagu qiimeeyaa waxqabadkeeda waxaa lagu qiimeeyaa cadaaladda waxaa lagu qiimeeyaa yacni sida ay u kala og tahay dadkeeda maanta aniga inta soo hor istaago ummadda Soomaaliyeed ima odhan karo haddii uu damiir leeyahayna maanta ma una yidhaahdeen cudurdaarna looma samaynayo sababta oo ah dadkiisii oo gaajo dhimanaya dadkii isaga ilaahay mas-uuliyadda ka saaray oo dhimanaya baahi iyo gaajo u dhimanaya
iyo baawur halkaa intuu raashin buufiyey halkaa ka saaray Puntland uu geeyey markan Puntland uu geeyey aan leeyahay anigu dadka uu geeyey kama xumo laakiin sadaqadu gurigaaga ay ka bilaabataa sadaqa markaad bixinayso gurigaaga ay ka bilaabataa waxaad ila aragteen indhihiina aad ku aragtiin dadkii uu raashinka gargaarka siiyey ama u geeyey oo u mahadnaqaya oo le Mustafa Cagjar madaxweynahayagii dhalasho jiilka aan wadahay ee noo damqaday dabcan hadalkaa marka la maqlo ay dadkaasi leeyihiin iyo dadka halkaa uu ku iloobay ama Somali state ee mas'uuliyaddu ay ka saarneed gaar ahaan Baabili iyo deegaankeeda maxaa loo macnaysan karaa wuu iska cad yahay qorshahaasi laakiin ma aha political game way ka maqan tahay ma fahanteen kulley muuqaalkayga saaxiibadii way daawanayaan aniga saaxiibaday way daawanayaan ehelkayga way daawanayaan ehelkiisu way daawanayaan inkastoo nahay dad isku ehel ah laakiin laynoo kala abtiriyey soomaalinimadana been laga sheegayaa soomaalinimadu ma aha mid laga sinaysto soomaalinimadu ma aha mid laga sinaysto soomaalinimadu waa walaaltinimo iyo midnimo iyo wax wada qaybsi iyo wax wada cun iyo wax wada lahaansho wax ma wada lihin been ma sheegaya annagu wax ma wada lihin go'aankaana Mustafa gaadhay waxaad ila aragtiin dadkii uu gargaarka u geeyey oo u mahadnaqaya ila daawada please fadlan anigoo ka hadlay afka dhalinyarada gobolka Sool gaar ahaan dhalinyarada isu taagtay ka shaqaynta nabadeynta koonfurta calaadi ka dhacday waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Cagjar oo soo gaarsiiyay deeq dadweynihii halkaasi ku barakacay madaxweynaha waxaanu leenahay nagulihda abaalka iyo dawlad deegaanka Soomaalida aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa abaalkaasna waa idii haynaa waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa ama fariin dhalinyarada ku sugan gobolka Sool ardayda iyo dhalinyarada kaleba waxaan leeyahay waa dhalinyaro u kaca sidii aad uga qayb qaadan lahaydeen hawsha iyo nabadeynta ka taagan koonfurta gobolka Sool waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Mustafa Cagjar madaxweynaha dawlad deegaanka Itoobiya Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar waxaan leeyahay waa isku leenahay waanu ka filaynay garab istaagaadna garab istaagtay aad baanu kaaga mahadcelinaynaa haddaan nahay shacabka reer Sool dhalinta reer Sool iyo shacabka reer Soolba waanu ku mahadcelinaynaa waxaanu ka codsanaynaa in hawsha loo daayo dawlad deegaanka iyo dawlad deegaanka Soomaalida in loo daayo ayaan ka codsanayaa iyo ergada kale sida isimada oo kale aan cid kale dhex galin ayaan codsanaynaa waxaan kaloo baaq u dirayaa dhalinta gobolka Sool meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan ololaha nabadda sida aan uga qayb qaadanay annagu inay uga qayb qaataan ayaan ka codsanayaa 12 qof way naga tagaysaa waxaan kaloo rajaynayaa inay in ka badan ku soo biiri doonto ololaha nabadeed aan warsamaysadaayin waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka aan la soo koobi karin aan uga diraynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Mustafa Cagjar Soomaalidu waxay ku maamaadaan in dhalasho kugu dhiidhiyay in dhuun kugu dhaadhacay marka Mustafa Cagjar uu soo halgamay si wanaagsan ayuu u soo garab istaagay labada beelood oo walaalaha ah shaqaaqadu ku dhexmartay marka halkan waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha kililka Shanaab oo Mustafa Cagjar oo halkaas ka qayb qaatay olole aad u ballaaran oo ah hadii ay ahayd qaybtii mucaawimaadka qaybtii ma garanaysaa ciidamada qaybtii ma garanaysaa dawada cidii u horeysay u soo gurmatayna noqday mahad gaar ah u direynaa bismillaah marka horeysa anagoo ah dhalinyaradii gobolka isku istaagtay nabadeynta waxaan halkan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Mustafa Cagjar waxa tahay ninkii quriga ee Soomaaliyeed oo garab istaagay labada beelood ee walaalaha ku dagaalamaya deegaanada saaxdheer iyo qorile u dhaxaysa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa
dadkii soo barakacay annagoo ah dhalinyarada gobolka Sool waxaan aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo soo gaarsiiyay rug ahaantii caawimadii ugu horeysay taas oo ka soo qayb gashay ama qayb weyn ka ahayd wax soo gaarsiinta dadka abaaroobay dhalinyarta iyo shacabka gobolka Sool waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaaliya Mustafa Cagjar aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa deeqda soo gaarsiiyay walaalaha Soomaaliyeed halkaas dagaalku ku dhexmaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa in Allaaliya intii ka qayb qaadatay iyo dhalinyarta gobolka Sool aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya khaasatan madaxweynaha Mustafa Cagjar waxaan halkan ka cadeynayaa runtii oo aan xaqiiqada dhabta kaga hadlayaa walaalaha masaafadu dhex martay ee dhibaatada isku haya dagaalada iyo colaadaha inaan cid kale hadalka idin sheegayay cadeyntiisii koowaad wada haysiin bal imikana waxaad ila aragtiin xaaladan idinka sheekeynaya muddada 10 marar ku dhawaadka ah oo ah dadkii tirada lagu darsan waayey ama dadka aanan aqoonba waxaan ku macneeyo xaaladda looga aamusay iyo dembiga ay galeen waxaan filayaa qiil aan ku macneeyo horta waan waayey dembiga ay galeen aan ku macneeyo dembiga ay galeen sidan aan ku macneeyo sidaasaan ku macneeyey sida aad aragtiin shaashadda maxaa ku qoran cadaalad darro weliba qabyaaladaysan cadaalad darro qabyaaladaysan waana sawir qaldan oo been ah oo dadka uu ka iibinayo waxba gudaha ma sii qodqodayo intaasaa ugu filan bal waxaad aragtiin dadkii aan caawa dhan ka sheekeynayey ila arka iyagana muuqaalkooda ama xaaladda ay ku sugan yihiin hawshooda soo faragelinayaan ayaan codsanayaa magacayga Shukri Aadan baa la yiraahdaa waxaan ka soo dadkii ka soo qaxay baan ku jiray Baabili marka miyi magaalada waxa weeyaan waa laga soo qaxay dadkeen waa dad waxa weeyaan waan xisaab lahayn intii ariya waxa haysateen meelahaas ku jira wixii kale baraxaas ay bareeyeen beeqo dhandhame ilaa waxa weey koore ayuu dadkii daasan yahay qaar baa daaqata meelolka yaa iska daasan qaar baa daaqada daantiisa ilaa tan waxa la daasan yahay jijiga marka saa darteed waxaan ka codsanaynaa wixii aad awoodi kartaan inaad dadkiina qabartaan waxaad soo taarataan baan ka codsanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu degmadeed ku nooshahay waxaan ku noolahay dhandhame degmada dhandhame ayaan ku noolahay haddaad raashin baa tiraa daawo biyo wax alla waxay hayaan lama yaqaan marka dadku u baaba'ayaa cudurro kale jaajaadina way ka dilaaceen markaas darteed waxaan ka codsanaynaa intaad waxay gelisaan ودكينا وحوي وحقرب ويلكاسا وحوي نكي وحقرب أم بعدك sidoo kale dana qalaal waad aragteen labada muuqaal sida aanay isku qabanayn qofka damiir kale uu fahmi karaa ma jiro cudurdaar dambe ama wax dambe oo lagu kala sameeyaa inuu xaafad noqdo inuu qarannimada isagu diido isaga yaa horseed ah laakiin waxaan u soo jeedinayaa intay goor tahay waqti yar buu talada hayaa
inuu sida ugu dhaqsaha badan ummadda soomaaliyeed ugu cadaalad falo inuu ummadda soomaaliyeed u cadaalad falo inuu qaladaadka uu galay uu saxo in qaladaadkan joogtada ah iyo fudaydkan iyo xil isa saari la'aantan iyo qolo jeclaysiga uu ka baxo ummadda waxa dan u ah qarannimo ummadda dulmadna waxaan u sheegayaa inay fadhiga ka kacaan in ay raadsadaan xaqooda guul ama geeri labadaas kama dhaxayso hadda la isku hayo layskuma faano qofku hadduu walaaltinimadaada diido adigana dani kuguma jirto waxba iskuma nihin haddaad aniga walaaltinimadeeda diidid waxba iskuma nihin ina kala kaxee laakiin weli waxaan ku leeyahay ma ayna dhammaan cadaaladda iyo waxqabad ummadda u siman sida ugu dhaqsaha badan abjarow inaad daawan doonti waan ogahay saaxiibadaa way daawan doonaan cadaaladda iyo sinaanta ummadda soomaaliyeed soo celi habeen wanaagsan walaalayaal kulanti dambe nooli kulante insha allah ilaahay hayna kulan siiyo